Bismillah, assalaamu calaykum. Maalin wanaagsan, habeen wanaagsan hadba ka idin tahay. Insha Allah maanta waxaan isla eegi doonaa aan kulan garan doonaa hadduu eebbe karaal noqdo barnaamijka caanka ee AVC Plus. AVC Plus waa mid ka mid ah adeegyada ugu caansan ee Soomaaliya laga isticmaalo khaasan shirkadda Hormuud. Haddii aan weydiino macallin Google sidaas ayuu leeyahay. Waa kaasa AVC Plus oo ah free electronic mobile transfer waa si weydiin kartaa adii dhimane, laakiin haddii aan soo koobno waa mid ka mid ah adeegyada ugu caansan ee Soomaaliya waana e-mobile money transfer. Insha Allah waxaan ku kulan garan doonaa hadduu eebbe karaal noqdo C++ anigoo adeegsanayna software-ka caanka ee DVC++. Dhimane adigoo ku kulan garan kartaa Java iyo wixii Python iyo wixii la mid ah ama software badan. xitaa ku kulan garan kartaa maadooyin kala duwan ee Java mise haddii AVC-dan ay ka shaqeynayaan meesha aad joogto kuley wax la mid ah ayaa jira kuwaasi waad kulan garan kartaa adna. Anaga saan hor usoo sheegnay waxaan adeegsan doonaa software-ka caanka ee DVC++. Adiga haddii aad rabtid VS Code adeegsa, Sublime Text adeegsa, Brackets adeegsa, maxadidno hadba meesha adiga iyo wax adiga aad jeceshahay ayaad adeegsan kartaa. laakiin haddii aad u baahan tahay software-ka aan adeegsanayna DVC++ halkaas kala soo dego download ku dhufo linkigana hoos ayaan soo dhigi doonaa hadduu eebbe karaal noqdo commentiga u horeeya. markaan barnaamijkan ayaan gudaha u sii gelaynaa file leh new kadibna source file-ka doono. markuu horeyso waxaan soo import gareynaynaa library-ga caanka ay ku tahay C++ oo la'aanteed wax shaqeynaya aysan jirin waana hash include IO stream input output stream oo wax ku shaqeynaya malaha C++ library la'aantaas ma shaqeynaysa. kadibna namespace oo namespace-ka sidii aadan u qabanin memory-gaada boos ugu qabanin macnaha programka asagana meel oo ka soo kaca ama laga soo akhrinayo malahanba. namespace-kan waa std ee C++ ay qaadato. kadib baan save gareynaynaa meesha folder-ka adiga aad rabto dhiga, laakiin muhiimadda waxaa weeye .cpp ha ka iloobin haddii aad ku sameynaysid C++ oo C++ extension-keeda haddii aad ka tagto that means C++ maaha koodkaada. kadibna mainka usoo galo programkaada program walba oo program walba ee C++ yaan dhihin C++ kaliya program walba inuu main yeeshaa sida website HTML ha ahaada ama PHP ha ahaada index.html iyo index.php ay u leeyihiin. programmada kale main class ay leeyihiin. bin ayaan define gareynaynaa oo qofka hadhow ku soo gali doono programka. kadibna structure-kii guud ayaan diyaarinaynaa. structure-kan ma hubo laakiin kuley sida aan jeclahay waa sidaan markaad soo gasho kor waxaa ku qoran AVC+ oo labadaas hyphen iyo square bracket iskaas ay ku xiran kadibna NL oo linkaas iska soo jar oo korkaas korna waxaan u baahanahay space yar si uu programkan kor ugu dhigin. space yar ayaan kor ka soo sakinaynaa wax kale ma ahane waxaan ugu soo sakinaynaa bis inaa line empty meesha aan ku daawacno empty line. sorry halkaas way all code full banaankii geetaasna sorry oo bracket dhexdiisa ma aha NL ka qaadanaysa. halkaas space-kaas kor ka soo siko kadib maxaa la qofka intaas noo soo koobiyey markuu program soo galo waxaa la dhihi doonaa fadlan soo geli binkaada sax sorry caps lock fadlan soo geli binkaada ayaa la dhihi doonaa. markuu bink soo gelin waa laga jeegaraynaa sax soo geli binkaaga. okay kadibna hoos ugu soo deg qofkii bink option-kii ku soo geli lahay sii horta oo sii inde sida Java-da isticmaalaysa u dhahay system in intana waa sii in kadibna bink ayaan ka jeegaraynaa random number iska qabsa dhimale adna waxaa rabto binkaas haddii laga jeegaray u sax ma hool ayaa dhiciisa haddii kalena hool kale ayaa dhiciisa waa if else just. okay intaas inoo soo koobiyey xaalatul cadisiya. halkaas inoo dhig alignment-iga iska sax haddii waxaa koobiyeynaysid iyo haddii aad qoraysidba alignment-iga waa muhiim mar walba iska fiiri.
inkastoo waajib ay ahayn haddana it is a good practice. Haddii uu ka qaldan ayaan ku hormarina oo qofka waxaa la dhihi doonaa haddii biinka qaldan uu soo geliyo biinkaaga waa qalad sax biinkaaga waa qalad haddii biin qaldan uu soo geliyo meesha ayaan ku dhamaan doonaa programka uu ka bixi doonaa qofka. Haddii biinkiisa uu saxan yahayna barnaamijkiisa gudaha u kala sax oo sidii itus haraaga iyo wixii lamid ayaa usoo baxayo. waa 9 qodob saan jeclay kulley itus haraaga ayaa ugu horay ilaa iyo way badan yihiin marka waa soo dhameystirina 9kaas qodob kadib ayaan isku soo laabanayna. waa soo dhameystirnay 9kii qodob bay noo dhan yihiin marka qofka marka biinkiisu saxan yahay 9kan qodob ayaa usoo baxay bal aan tijaabina raangareyno. sarjarkii biin qaldan geli marka koowaad biinkaada waa qaldan programkii uu ka baxay sax ku celi mar kale biinkii saxnay geli oo waa kaas 9kii qodob laakiin marna xasina meesh ku sii daawacnaan sax wixii laga soo tagay waa in laga tagaa waa iska tirtirina marka gudaha soo gal system CLS ayay leedahay CSS ka daan qaldaneen oo ka caawinaya inaa wixii shaashadaha lagu tirtiro ama lagu kilin gareeyo inoo koobiyay intaasi. sidoo kale waxaan u baahanay sax qofka biinkiisa marka uu qaldan yahay aydan waxaa la dhihi doonaa biinka waa qalad laakiin biinkii uu soo geliyay iyo wixii hore waa la tirtiraa. tijaabi marka haddii intaas ay shaqaynayso biin qaldan okay wax qaldan la iska geli okay waa la tirtiray sax oo biinka waa qalad bisa meesh ku soo taal ku celi mar kale oo haddana tijaabi biin saxan geli aydan waa shaqaysay oo hal aan rabin ba meesha wixii hore waa la tirtiri in hal qodob ayaan ku diraynaa kadib ayaan qayb kale ka sameyn doonaa haddii Ilaahay ka raali noqdo. waxaan ku bilaabaynaa qodobka koowaad oo ah itus haraaga option uu qofku wax ku soo geliyo ayaan siinayna marka si uu wax u kala doorto si in option ha soo geliyo optionkaas kor ku soo define garay dhimane oo integer oo number caadi sidoo kale waxaan u baahanahay haraa oo fluid sax fluid waxaan qaadanaynaa jajab oo mar walba lacagta jajab ay ku jiro kara dhibic 0 ha ahaata 0.5 0.2 210 iska qabsanayna just waa random number asana hoos maaw kadib qofka waxaan siinaynaa waxa uu soo geliyay ayaan ka jeegreynayna lambarka uu qofka soo geliyay haddii uu la mid yahay hal oo itus haraaga shaqaya u dhicisa sax oo qofka haraagiisa ayaa loo soo daawaci doonaa. intaas inoo soo koobiyay xaalatul cajisiya alignmentiga marka la iska hubi mar walba waa muhiim. intaas inoo sii koobiyay sorry waxaan ka waday sarjarka programka mar walba uu kula socon doonaa oo meeshaas uu ka maqnaa oo mar walba EVC Plus kor ayay ku qornaa doontaa iyadoo one line alignmentiga hoos loo soo dhigay si uu program kor u dhigin hoosna way ka maqan tahay LS-ka sorry ma yahay halkaas way sax mar walba EVC-daas ka maharaysa iyo space-kaas mar walba iska hubi marka haraagiisa ayaan daawacina qofka haddii hal uu doorto anagoo ka faa'iideysanayno variable-kii hadda aan soo qabsanay oo haraaha $sign kadibna concatenation ku sameeyo variable-kaadi ku soo xiro haraa halkaas ayaa laga soo akhri doonaa lacagta mar walba oo qofka itus haraaga uu dhaha sorry halkaas sax aydan space-kii kore space-kaas mar walba muhiim ayuu noo yahay si uu programkan kor ugu dhigin kadibna NDL leh oo leenkaas kor si loo soo dego haddii kale waa lagu daawo qaban doonaa semicolon waa banaanka okay aan tijaabina maxaa maqan variable-ka uma la qabanin miya variable-ka ilooni haraa
halkaasi waa haraa. I'll just try an error from scratch أو halkaas maxaa ka qaldan semicolon and L. Okay, let's test. sax uu shaqeynaa safilaa biin saxan geli kadibna lambar hal sax lambar 2 oo itus haraaga. Okay, wakaas uu shaqeeyay. Inshallah barnaamijku dheeryahay taxana ayuu noqon doonaa qaybo badan ayaan ka sameyn doonaa. Safar dheer ayaan sugayaa oo xisaabaad badan ayuu leeyahay. sidaas darteed ayaan u doonanay EVC+ oo sida caawiya iyo dhigaal iyo waxyaabahaas kala limidka aan u qaadayni. marka hadduu eebbe karaal noqdo sii wada doonaa qaybo badan ka sameeyna waa inoo baarto inshallah iyo shaqo badan.